بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. cudurka macaanka ama sakarowga ruux lasoo yaqaano waxaa laga doonayaa ruux inuu soomo hadduu awoodo. marka waxaa la rabaa inuu marka ilaaliyo wixii dhakhtarka ay ku ballameen. marka sida ugu daran waxaa waaye ruuxa inuu raashinka uu cunayo hadhow markuu afuraayo inuu afurka iyo cashada isku daro, suxuurtana uu ka dhigo meel fog. suxuurta marka inuu ka dhigo aadaanka ka hor waxyar, afurkana isla markiiba inuu afuro, laakiin dhexdooda inuu raashin saas gelin waxyaale isnaaka iska yaryar ma ogiye. si hadday u kala fogaadaan, dawada wuxuu qaadanaya laba waqti, waxuu qaadanaya afurka iyo wuxuu qaadanayaa waqtiga suxuurta. marka taa waxay keenaysaa in hadhow si fiican loo kontrooli karo. waxaa la rabaa raashinka uu ku afuraayo in timir aan laga waayin. saasoo kale suxuurta iyada nafteeda timirta way fiican tahay, waxaa la jecel yahay waaye. waxaa la rabaa in uu iska daayo afurka waxyaalaha la shiilshiilay, waxyaalaha mataqaana sambuusiga soomaalida ay jeceshahay, burka saliidda badan. taa waxay keenaysaa in sokortiya dhuxadka ay ka baxdo. kuwaas haddii uu marka inuu timirta ku afuro, haddii soomaalida bocor bay samaysaa, bocorkaas u cuno mushkilad maaha. kadibna isla markiiba dabcan salaadii baa dhexda ku jirta, kadib waxaa weeye cashadiiba hore ka fadhiisanaya. cashadaasna waxaa weye hilibkiisi iyo maraqiisi iyo muufo iyo ama mataqaana xoogaa yaro baasta ah. waxaa iga fariina bariiska waa sokortiisa waa badan tahay, waxaa ka fiican baastada. soomaalida baasi bariis bay jecel yihiin, marka waxaa ka fiican baastada haddayba danta qasabto. haddii kale ceesh ama muufo iyo waxaasu qaadanaya, hilibka iyo maraqaas ku cunaya. taas waxaa weeye afurkii waaye. marka wuxuu rabuu cabi karaa casiiraad buu cabi karaa aan sokor lahayn. bambeelmadan mataqaana burtuqaalka ayuu cabi karaa, isbaandheyska iyo waxaasuu cabi karaa. laakiin badanaa mooska iyo cambaha iyo inuu ku daro ma aha, iyo babaayga inuu ku daro ma aha afurka. hadhow markuu taraawiixda ka soo noqdo ayuu babaayga cuni karaa ama moos cuni karaa. annaga waxaan rabnaa in aanu hadhow cabiridda waxaan rabnaa 2 jeer in la cabiro. waxaan rabnaa 2 saac kadib afurka in la cabiro. waxaan rabnaa afurka kadib in 2 jeer la cabiro 2 saac kadib. afurka hadda waqtiga suxuurta 2 saac kadib, afurkana 2 saac kadib in la cabiro. suxuurta waxay ku aadaysaa salaad markii laga yimaado 6 qoraxda ay soo baxdo in la cabiro, in si loo arko daawadii ay qaadatay iyo suxuurtaad cuntay inay isu dheelitiran yihiin. afurkana saasoo kale, afurkaad cuntay iyo daawadii aad qaadatay inay isu dheelitiran yihiin. waxaan ka rabnaa afurka kadib 2 saac 8 barka ilaa 9 kusoo aadaysaa dabcan markii taraawiixda iyo salaadaha laga soo noqdo. marka taa waxay keenaysaa in dhakhtarkaagii hadhow nidaamkii aad bedeshay, soonkii meesha soo galay, in uu ruuxi marka uu si fiican dhakhtarkaadi uu kula socdo. maalinimada bukaanka waxaa la rabaa in uu sidiisii caadiga u shaqaysto. waxaa la rabaa inuu maxaa la yihahda noloshiisii aado. micnaha waa sooman tahay meel seexo sax maaha. waxaa la rabaa inuu maxaa la yihahdaa laakiin ku dadaalo intii suurtagala inuusan qorax badan taagnaanin, inuusan lugeynin, inuusan riyaadi iyo jim samaynin isagoo sokor qaba. oo haddana mataqaanaa juhdigaas inuu galo lama rabo maalinkii. ila maalinkii wuu sooman yahay. maalinkii waxaa la rabaa intii uu kari karo inuu meel hara joogo, inuu maxaa la yihahda shaqadiisa hadday xafiis tahay waxaasuu joogi karaa. shaqada caadiga xafiisyada dhexdooda wuu socon karaa meel har ah. laakiin waxaa la diidayaa shaqo culus. dabcan ruux ilaahay mataqaana subxaana watacaala risaaqadiisa u geliya inuu dhagax jebiyo, inuu shaqo culus qabto, dee waa meesheeda. taa dhakhtarkay kula noqonayaan waa uun laga tashan doonaa. marka laakiinse haddaysan loo baahnayn inuu qorax taagnaado, inuusan qorax taagnaadin oo aysan keenin dhidid badan inuu yani sabab la-aan uu iska taagnaado meel qoraxa lama ogola. waxaa la rabaa intuu kaydin karo wuxuu cunay inuu kaydiyo. maalinnimadii waxba looma baahna inuu haddana maryaalo kala cabiro. duhurkii iyo ilaaqada iyo waxba ma jirto. maxaa la yihahdaa afurka ka horna inuu cabiro waxba looma baahna. maanta oo dhan buu qatanaa. intaan ku heshiinay wuxuu afurhayaa oo maxaa la yihahdaa cabirhayaa afurka kadib 2 saac. xagga suxuurta waa waxyaalo badan waxaa jira calyo keena afkaada inuu qoyonaado.
afhaad inuu qalaalo lama rabo. raashinka afka qalaji caliyada u zaa'idiyo waxaa ka mid ah burtuqaalka ka mid ah, waxaa ka mid ah yogurka, caanaha fadhiga weeye, waxaa ka mid ah digirta, waxaa ka mid ah mooska, waxaa ka mid ah timirta. marka hadduu kari karo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa barakeeyey in lagu afuro timirta, in 3 xabo waxaan ka badnayna lagu suxuurto. haddii ay keenayso uu moos iyo timir hadduu isku daro inay sokortiisa kacdo, hadhow baa la ogaanayaa 2 sac kadib ayaa la fiirinayaa. hadday badan tahay waa la joojinaya. ruuxii kaniini la siiyey haddii sokortiisa degi weydo, dabcan dhakhtarku kula noqonaya isagoo shaxdii tusay, shaxdii 2 sac afurka iyo shaxdii 2 sac ka dambeysay suxuurta ayuu dhakhtar u geeyay. dhakhtarka marka isagaa qaadanahay go-aan. marka waxaa khalada bukaanka inuu isaga iska tashto, inuusan dhakhtarkiisa ku laabanin, wuxuu raba iska sameeyo, daawadu raba iska qaato, sokortii oo kacsan uusan dan ka gelin. waxaasoo dhan waxyaalaha khaladka waayo hadhow keenayo ruuxii inuu mataqaanaa uu baaba'o oo maxaa la yirahdaa ama koomo lagu keeno ama sokortood meel wax laga qaban karin oo meel xaaladeed meel xun joogto uu ku soo noqdo isbitaalka. cudurkan waa ogsoonahay mar walba wuxuu u baahan yahay in laga warqabo, in si joogto ah looga warqabo. bukaan badan baa wuxuu u maleeyaa cudurkan sokorta sidii hargab oo kale, sidii malaria oo kale, sidii bronchita oo kale, inta daawo lagu siiya aad ka raysanayso. cudurkan waa cudur joogto ah, waa ku daba jooga. maxaa la yidhaha mar hadduu kugu dhaco waxaa la rabaa inaad si joogta aadna oo la socoto oo bukaankaaga waxaan leeyahay dhakhtarkaaga aada marjic kula noqdo oo la noqoto. dad baa waxaa jira daawadii loo qoray oo 1 bil ah markuu dhamaysto xataa inuu gurigiisa iska joogayo uusan kusoo noqonayn, dhakhtarkii uusan kusoo noqonayn. waa khalad. waa inuu dhakhtarkii kusoo noqdaa. dhakhtarkii waa inuu hubiyaa daawaduu siiyey inay xakamaysay cudurka, inay xakamaysay sokorta. marka haddii saa la yeelo waa ruuxii iyo dhakhtarkii wada shaqayn ayaa ka dhacaysa. taasaa waxay keenaysaa in marka cudurkii la xakameeyo. haddii kale cudurkii xadku ka baxaya. maxaa la yirahda iyadana meesha jirta in wixii u dhaxeeya afurka kadib ayaa socodkii uu samayn jiray uu samaynaya. yacni sax maaha in uu dhakhtarka bukaanka uu joojiyo wixii riyaado ama exercise uu samayn jiray inuu joojiyo, sax maaha. dabcan maalinkii ma samayn karo. hadduu samayn jiray subaxnimo ama jiim aadi jiray, sax ma aha. maxaa jira ruux sooman waayo. waa inuu sameeyaa afurka kadib. ayuu 1 saac hadduu soconayay, hadduu nus saac soconayay, hadduu 45 daqiiqo soconayay, waa inaan laga harin taas. waayo taas waxay ahayd waxyaalo badan oo nagu kordhinaya in sokortii ay xakamowdo. raashin saxa, daawo saxa iyo exercise oo la sameeyey waxay keenaysaa in cudurkii uu xakamaysnaado mar walbaba. waxaa kaloo ku jira dadka waxay jecel yihiin inay masalan qaxwo cabaan, inay shaah cabaan. shaaha fariinta aan sheegayna waxaa waye soomaalida way jeceshahay, waa ogsoonahay. shaaha waa in loo cabaa caleenta, in looma cabaayo sokorta. shaaha maxaa la ruuxii caleen u cabi jiray wuxuu cabahayaa markuu 2 saac ay soo dhaafto raashinka ayuu cabahayaa. dabcan waa afurka. suxuurta jansi fursad saasaba ma jirto. maxaa jira waqtigu suxuurta iyo salaadii way isa saaran yihiin. hadduu kari karo uu qaadanaya shaahiisa, laakiin shaah wuxuu qaadanaya caleen cadeys uu ka dhigan karaa. waarikow ay soomaalida dhahdaa, koonfurta waarikow laga yiraa, uu qaadan karaa. fariinta aan gudbanayna waxay tahay daawada haddaa qaadatid walaalow iyo abaayo raashinka haddaad daawada qaadatid mudday leedahay ma ah micnaheeda. cudurkan waa kula noolaanhaya. waa inaad adoo 7 markaa qaadata dhakhtarkaad u soo noqotaa, la jeegareeyaa, shaxdii lagu dhiiba aad soo buuxisaa, la ogaadaa inay daawada wax ku tarta. haddaysan wax ku taraynin dhakhtarka ayaa go-aan gaarahaya oo bedelahaya. waa inaad dhaqdhaqaaq yeelataa. cudurka noociisa badan waa type 2 boqolkiiba 90 wuxuu ku yimid dhaqdhaqaaq la-aan, wuxuu ku yimid cayil, wuxuu ku yimid mataqaanaa iyadoo mataqaanaa loo aabayeelin mataqaanaa raashinka la cunaayo. soomaalidu waxay baratay baasto iyo bariis fara badan inay cunaan. cunadeena waa inaan kala noocnaa. khudaar waa inaan cunaa, koosta waa inaan cunaa, fruitiska waa inaan cunaa. fruitiska waxaa leedahay fawaakiida, waa burtuqaalka, waa mooska, waa cambaha, waa liimada, waa kan maxaa la yirahda isbaandhayska, waa babayga. kuwaas inaan caadaysano waa inaan cunno. fitamiinaadna way leeyihiin, difaaca jirkana waa ka qayb galaan. ansalaatada waa inaan caadaysanaa iyo barbarooniga iyo qajaarka iyo karootada, kuwaasna waa inaan caadaysanaa. waa inaan markaa malaay cunaa, waa inaan hilib cunaa.
hilibkaan cunayna oo baruur lahayn oo jiir yahay, saas ayaa lagu badbaadi karaa. waa in markaa la yareeyaa baastada, waa in la yareeyaa bariiska, waa in la yareeyaa xabadaha canjeerada ah, waa in la yareeyaa rootiga, waa in la yareeyaa muufada, waxaas waa in la yareeyaa. marka baradhada waxay ka mid tahay wax sokorta kiciya. soomaalida baradho badan bay ku daraan suugada, ha laga daayo. maxaa la yihahdaa hinahaas haddii la ilaaliyo, raashinka noociisa la ilaaliyo, daawada si saxa loo qaato, dhakhtarka lagu soo noqdo, exercise la sameeyo, ugu yaraan nus saac la sameeyo, ugu badnaan saacad iyo wixii ka badan la sameeyo, waxay keenaysaa cudurka in la xakameeyo, weligiina uusan waxba ku yeelin. hada wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.